ayadoo muddo ka badan 2 bilood aysan u soo shaqo tagin goobahoodii iyo meeradii ganacsiga qaar ka mid ah dadka ganacsatada ee ku dhaqan degmada Cabudwaaq oo saameyn ballaaran ay ku yeesheen roobabka isdaba jooga ee weli ka soconaya gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Cabudwaaq ayaa waxa qaylo dhaan xoogan arrintaasi ka muujiyay dadkaas oo iyagu cabasho ballaaran ka soo saaray jidgooyada iyo waliba dhibaatooyinka roobabka ay u geysteen ka soo jidgooyada xanimaada iyo waliba baraka cadaadka roobabka ay u geysteen ayaa haddana cabasho iyo qaylo dhaan waxa ay ka muujiyeen dawladda hoose ee maamulka degmada Cabudwaaq oo bishanba bilowday hawlo canshuur aruurin ah ayadoo arrintanina aysan cid wax ka qabatay aysan jirin maadaama magaalada Cabudwaaq muuqaalkeeda marka aad fiiriso ay u egtahay hir ama sida badda oo kale ay fadhiyaan meelo badan iyo waliba goobo lagu ganacsan jiray biyihii iyo waliba daadadkii soo fatahay roobkii ka da'ay degmada Cabudwaaq ayadoo qaar ka mid ah dadka ganacsatada ka sokow in badan oo ka mid ah xaafadaha ay ku dhaqan yihiin dadka shacabka ah ay u soo galeen biyihii iyo daadadkii soo fatahay roobkaasi degmada Cabudwaaq oo muddo 5 ilaa 6 jeer ka badan ay roobku iskaga soo daba noqnoqdeen ayaa ilaa hadda aysan jirin cid iska xil saartay waxna ka qabatay arrintaasi walow hadday ahaan lahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka ka dhisan degmada Cabudwaaq iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimo oo ayagu waxba ka qaban arrintaasi qaylanaanta iyo cabashada dadkan ganacsatada ay ka muujiyeen daadadka biyaha roobka oo ka xanibay goobahooda ganacsiga ka soko ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dawladda hoose ee maamulka degmada Cabudwaaq ay bilaabeen hawlo canshuur aruurin ah walow dadkuna ay ka barakaceen goobahoodii arrintaasina ay noqotay mid ka fajicisay isla markaana la yaab ay ku noqotay dadyoga reer Cabudwaaq iyo ganacsatada ah taasoo keentay muran xoogan oo shacabka iyo maamulka dhexdiisa ka alowsan waxa weeye magaalada dhibaato badan baa ka dhacday sanad walbana waa sheeko soo noqnoqota meeshan biyo fariisad bay noqotay baqaarada biyaha gala dadku waa cayftooba hadeertaana biyibaan magaalada dhex fadhiya marka waxaan ka codsanaynaa Soomaalida iyo hay'adaha iyo dawladda Soomaaliyeedba inay maartay gacan naxariis loo ku soo eegaano sidii magaalada wax looga qaban lahaa oo biyahan dadka iyo looga badbaadin lahaa hadda dadkii magaalada deegaanka oo hantida lahaa waa barakaceen waxay u bixin daafaha magaalada u bixin marka waxaan doonaynaa si naxariis ku jiro inay dadka Soomaaliyeed meesha soo ilaa haddana ma jiraan cid ayagu isku xilqaantay oo gooni ah oo ololeynaysa in biyahan wax ka qabato walow ay jiraan sharqanno iyo guux ay isla dhex marayaan dadweynuhu isla markaana ay uga cabanayaan ugana tashanayaan sidii biyahan mar uun laga yeeli lahaa oo aysan jirin cid qaadi karta ama ka gurin karta magaalada marka laga soo kaco awood xoogan sida dawlad oo ka bixi karta arrintani isla markaana ka qayb qaadan karta in biyahan looga daabulo ama looga dhameeyo meel ka baxsan magaalada waxaana inta badan shacabka reer Cabudwaaq ay dhaliil xoogan dusha ka saareen maamulka dawladda hoose ee degmada Cabudwaaq oo iyadoo iminka wada hawlo canshuur aruurin ah iminkana aan loo baahnayn sida ay sheegeen in la bilaabo tilaabadani Mahad Xasan Diini telefishinka caalamiga Universal Cabudwaaq